إلهي سبحانه وتعالى كوا وعديga مقلي haddana qaaday ee qalbigooda iyo maskaxdooda iyo jawaarixdooda qalbiga uu galay iyo nuurka Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allaah naga dhigo amiin dhahaya halkan baa joogtaan daraawiishay culumadii baa idin timid oo dawladii baa idin daba jooga madaxweynaha baa idin daba jooga oo taliyii ciidanka idin daba jooga oo tababar baa la idin diray oo rarkii baa la idin ka bedelay oo wala soo tababaray ma isweydiideen ilaa maanta wala daba jooga macallimiinta la idin kala bedelaya tababarada xagga ciidanka loo qaadanayo xagga akhlaaqiyadka idin baraya xagga tartiibaadka dadka looga hortago cadawga idin baraya qaabka loo galgasho hadii cadawga arkaan iyo qaabka la iskaga dhiciyo iyo qaabka la isku difaaco idin soo baray laakiin kaga ma harin ilaa hadda wala daba jooga dawladda wala daba joogta culumadii wala idin daba joogta waxa la idin ka leeyahay ujeedada hafka la idin ka leeyahay ma umaleynaysan inuu ciyaar yahay hadalkaas haddaan marka garanayno iska wada hordoonaysaan meeshan inuu waad maxbuus la soo qabtay ya inaad isku wada haysaan ka warama sax miyaataas may waa ina dad nashaad leh oo dadkii lagu soo dhintay oo lagu soo xoogay xarig beelay dad ka muuqanaya oo dalkii anfacaya oo diintii anfacaya oo gurigoodii anfacaya oo ilmahoodii anfacaya oo haddii nasiixa laga helayo inaan noqotaan baa la doonaya nabiga kaleey salaatu salaam addiinu nasiixa أو نصيحة الدين تأهيد ولا يدين بريء علماء ما تنبأ يدين شيء جيسا نبي ولا ويدي صحاب اللي هذا هدي لا يكون هي تميم صوص الداري وعير لمن يا رسول الله يا يتهي نصيحه نبي وش عليه الصلاة والسلام تميم بن أوس الداري يا أصحاب جاس هو يدي وعير رسولك إلى هيو دين تانو جاي نستحاو تهي ذاتك واتمات دينتم محيين يستحاو تهي لمن يا رسول الله هو يدي رسولك إلى هي قال وحيني عليه الصلاة والسلام لله ولكتابه ولرسوله والأئمة المسلمين وعامتهم دينتم نستحاو تهي دينتك نستحاو تهي waxaan rabaa qofka horta awalan inay adiga ka muuqato askariga tuutaha u soo gashaday dadka inuu u nasteexayo nasteexadii diinta iyo wanaagii diinta ee nabigu uu sheegay عليه الصلاه والسلام awalan qabla korto inay ka muuqataa lafdan waa macna daahiran waa baadin inay ka muuqataa adiga labiskaagu sidoo yahay qurxoon yahay labiska ciidanka ma yahay labiskaagu labis la jeclaanaya ma yahay aragtidaada iyo nuurkaagu mid la jeclaanaya ma jeer wajigaagu waji nuur la ma yahay wajigaagu waji bashaashada ma yahay وجه وكم موضوع بشاشة كم وقته وجه أقوم يهاي وجهين ذي يكون يهاي نبي عليه الصلاة والسلام ويجي لو وقف وبسلمات ما تسكوي ما بس مصافحيان واسمه غايان دم يقول دبر نافع ده وجه أقوم يهاي بس وجه معبوس سهو قفكوا في رياضة كوا عربية سكذا في كوا شعب كه تجي يصير كوا شعب سنيان بيا وجه أقوم ما يسفيرس حالك أقوم حون غنية دريسك أقوم وضعته ما أنتي يودك واحد يشغل هذا واحد هاي ما يسكت سوق المان ما يسكت فيرس واحد تهي ما وقتها إن أرجع تهي أرجع جاسو كسعة كجوابية دولتي مسلم كاهد الصومالية قف معه كجوابية وأتهجن وصورة دي صعتها إنها تهي ما وقتها قف إسلام وكتر شو دينتي إسلامك ما وقتها إنها تهي نصيحة دي يا أخلاق دي ونكسنت تدبيرات كذي يا وناك كذي يا محاسن كذي قف كتر شو إنها تهي ما وقتها أنت صورن بعتها أما هو جانين هذه قال جاد دوني يا مركا إن هذا ما أسوق قلنتي وحي لقوتها بري يا وحي قرشت الوجلية يا وحي لقاد دوني إن أسوق قلنته يا بد لو هو الجوبه إن نقطة لو خساري راسي من دقونيسا لا يقول لك ما هو كبير فمن بقى إليه بيسار سوقات سبحانه وتعالى ضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير إلى يحب سوقات مثلا كو حد ما تشوف كلا يا إله الله سبحانه وتعالى مثل الرجلين أحدهما أبكم متكود وأبكم ومومع وقلب وين كانت أو تقانين ويان أبكم بالي هذا وسرق على أي هاي وما الله هدي لا يكون هاي قلبك سوى نصرانه وعقلك سوى نصرانه هدي لا يكون هاي وكاس أبكم أحدهما أبكم لا يقدر أن يتكلم على مولاه لا يحير بقر كيسي يا أبيه يا مدحوينه يا دكيسي يا دكيسي ولا يسوي هاي لا يأتي بخير وخيرنا مكانه هدو أدري هذا ويلك وسكري مالي أبكم كان قلبه وينها هدي مش جان سؤال هو سكراي ما هو سنة 8 سنة قاري أو لا 8 سنة قارو قاري أو سنة هاي عنده كان في الدونا
وعنابته كل قيب صدونا وهي ilmaha bahdiisa ku filaa doona oo baha kale ugu gudbi doona ma kulaha meeshu caalawin yahay wuxuu tara lama arko la yaqdiru ala shay wa kallu ala mawlahu wuxuu ku yahay culays waalkiisi ayna ma yawajiyo laaftii khayr hadii awrta doon awrtii soo ma hooyo war ilmaha iyo kuwa yarka kulba la joog gabdhaha ka hooyo gabdhaha awrta dooneen ilmihii kuma filna dabka qaar ku dhacaya oo qaar baa baadiyoobaya oo qaar baa duurka galaya habeenkii baa la baadigoobaya ninkii lagu soo xoogay harbeey oo uu soo korsan 16 sano halkaas ma ku maray meel aad la yaqaan Soomaali culays buu ku yahay waalkiisa buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala la yatib khalastawi huwa man ya'muru bil 'adl ma lamid baa Ilaahay midka aqliga leh oo macruufkii faraya oo aabe garab istaagaya oo hooyo garab istaagaya oo dalka garab istaagaya oo dawladda garab istaagaya labadaas ma isku mid baa Ilaahay la yastawi maaka Soomaali ma shaqadiisii la wareegay oo aabe garab istaagay oo hooyo anfacay oo dalka oo ilmihii anfacay oo dadkii anfacay oo dawladdii anfacay oo diintii anfacay kaas way waxa la doonayaa in dawladdu culays ku noqoto dawladdu culays ku noqoto Soomaali shaar lagu soo galiye oo diriisa lagu soo galay oo kabaa lagu galiye oo mushaar baa lagu qoray wax aad tareysay lama arko hadii lagu yiraahdo halkaas cadow baa ka jiray aad meelaha ku hurdoonaysaa cidinka habeenkii ka guuriya Soomaali adoo barada jiidanaya hadii yiraahdo soo labiso fayl baa jiray soo gal faylka hadii lagu yiraahdo lagu yeero oo bigil kala yeeriyo ciidanka shaarka qiyo kala dheer oo ka badal kala jeedo oo madowga ay kala jeedaan yaa meesha yaa faylka soo galaysa Soomaali magaas waxa leeyahay ruuxaas waxaan ciidanka waxaan miyaa wax ciidanku sheegay waxaan miyaa iska dhaaf in dawladda la jeclaado ama hadii ay ku reediriska la jeclaadee waa lagu nacayaaba waxaan noqonaysaa ninkii hadii ay ku leeyahay kaniiniga hargabka gadayo kale halkaas oo wareejinaya hadaa ficnaa weeyo weeyo hadaa ficnaa toogaar maanta wuxuu wareejinaya kaniiniga baristamoolka maartay madaxnuga hargabka la cunaa maanta ma wareejinaya baristamoolka baasha kartoonka surka u saran baristamoolka dur asagii duuf baa wuxuu daadinaya inta jeeda duufa uu daadinaya Soomahan baristamoolkiina hadii Ilaahay ku raayahay wuu gadaya dadku ma ka gadanayaan sheegade dadku ma ka gadanayaan sheego maxay leeyihiin walaal duuf ka socdaaya sheego isku daaway aniga baraayku baristamoolku siidaya adawi tabaan hodiifka looyay maxaan ka gadanayna waxa la mid ah ninka tadriiskiisa dawladda gashaday Soomahan dawladdu waa fiican tahay dawladdu dadkay difaacda dawladdu hadii ay ku roon yahay midka tuugahay gacqabata dawladdu hadii ay ku roon yahay midka laga xaqday xaq soo celida mid guri saqaatay guri soo celisa hadii booliisku waa shacabki laakiin maxaa sameynaysa gurguranaysa habeenkii hawaad xadaysa hawaad xawaraysa gabadhii ka fakar maayaan guriska waa seeta Soomahan shaar iyo surwaal kala dheer baad wadataa Soomahan oo kala nooc ah wadataa Maryam baa taamsa iska caadi ah tayay qaan buu yahay waxa la doonayaa waxa weeyaan walaalayaal oo la ku soo laalaabanaya oo dawladda qarshadeeda ku bixinaysa oo culimada ku soo diraysa oo taliyo u leeyahay barba haloo tago meel joogo ma la gaaro oo madaxweynuhu u leeyahay dadka diin baa ka rabnaa waxa la ogaaday wax qof aan diin lahayn cidna anfici maayo Ilaahay anfici maayo ko Ilaahay wax u tari maayo Soomahan diintiisana anfici maayo gurigiisana anfici maayo ilmihiisana anfici maayo hadduu qofka diinta Ilaahay uusan ku xaragoon oo libaasu taqwa uu san libisan taqwada cabsiga la usoo libisan oo alla ka cabsiga la imaanin qofku meel Allah ku baabaayo ku burburaya war balankeenu waxa weeyaan aan balanayno yahow wixii wacdi yahawana loo dhameeyay sheekhan loo sheegay waxa weeye ma bedelna nidaamkii hore iyo hurdadii iyo kala jeedkii iyo qaabdaradii oo nin walba naga mid ma noqonaya waxa la igu tala galay iyo waxa la isoo tabaray iyo waxa laga doonayaan u noolaanaya hadaan dhitaan ayadaan u dhimanaya taas ma leena diyaar ma ku mawna Assalamu alaykum wa rahmatullahi